maxaa ka cusub magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar. Warar naga soo gaadhay magaalada Dhagaxbuur ee xarunta gobolka Jarar ayaa sheegaya in saaka qof kasta oo magaalada ku noolaa lagu qasbay inuu tago goob loo calaamadeeyay oo bannaanka ah. Xogta ayaa muujinaysa in bukaanka isbitaalka magaalada Dhagaxbuur lagu amray inay labistaan isla markaana tagaan fagaaraha, iyadoo sida la sheegay qaar bukaanka kamid ah aad u xanuunsan yihiin. Dhinaca kale, gaadiidkii magaalada ka bixi lahaa iyo shacabkii saara ayaa hakad lagu sameeyay si ay uga qayb galaan isla fagaaraha dadka lagu ururinayo. Sababta ayaana lagu sheegay in Mustafa Cagjar oo maanta magaalada ka sameynaya olole lagu sheegay mid doorasho iyo isu soo bax taageero. Mustafa ayaa dhawaan sheegay inuusan cabsi u qabin kursigiisa oo ay shacabku dooran doonaan waa haddii ay doorasho dhacdee, balse saaka wuxuu miciin biday in bukaanka isbitaalada jiifa la soo kiciyo hakadna lagu sameeyay dadka safarka si uu u helo muuqaal. Laba beri ka hor ayay ahayd markii shacabka magaalada Awaare si qasab ah looga xidhay meheradahooda, iyadoo gacan qaadna loogu daray iyo aflagaado. Arrinta la yaab kale ayaa ah ma jira sabab dadka loo qasbo ama cod looga raadiyo, waxaana buugga neeba ku sii qoran xubin kasta oo la doonayo inuu ka mid noqdo xildhibaanna ku sheegta aan haysanin codka shacabka.